الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد walaalaha muslimiinta ah meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin salaamay salaanta islaamka ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib kiliibkan yar waxaan rabaa inaan ugu faa'iideysto mowduuc aad u xasaasiyad badan kaasoo ah xasidnimadu. walaalayaal, xasidku ama xasadka hadduu qalbiga kaa galo waa jirada ugu xun. wax ka xun jiro xasidnimo ka xun ma jirto. haddii qofkii xasid uu qalbigii uu ka galo wuxuu dhibaa nafsadiisa, wuxuu dhibaa walaalkiisa, wuxuu dhibaa bulshada muslimiinta oo kale ayuu dhibayaa. haddaan isxasidno waxaa imaanayso inaan iscayno, inaan isku caroono. haddaan isxasidno waxaa imaanayso inaan kala tagno. haddaan isxasidno waxaa imaanayso inaan isdagaalno. haddaan isdagaalno waxaa imaanayso inaan isdilno. intaasoo dhanna waxaa sababaya hooyo iyo aabba u ah waa xaasidnimo. jira ka xun oo ka fool xun xaasidnimo ma jirto. waa jirada ugu fool xun xaasid inaad wax xasidid. nabigana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa dhowr jeer uu nooga digay, axaadiistiisa ay ku caddahay. haddii xaasidnimo imaado waxaa imaanaya qofka xaasidnimo qalbigiisa uu ka galo oo wax uu xasdaya, waxaa imaanayso wax walba oo ilaahay naga reebay inuu kuu fududaado. ugu soo horayso dhanniga xun, lianna qalbigii ayaa waxaa kuu degay xaasidnimo ayaa qalbiga kaa buuxiyayo. qof kastoo walaalkaaga muslimka ah dhanni xun baad ka malaynaysaa, lianna horumar uma rabtid, inuu guul gaaro uma rabtid, inuu wax qabsado uma rabtid. ma fahmaysaa? hadduu guursanayo waxaad xasdaysaa, hadduu aruurtiisa uroonyahay waa xasdaysaa, hadduu xaaskiisa uroonyahay waa xasdaysaa, hadduu shaqadiis aadayo waa xasdaysaa. maantoo dhan waxaad ka aaminsan tahay dhanni xun. dhanni xun baa kuu soo degdegaya. dhanigii xunna soo teemahantiina naga reebay. iyaakum wadhann fa ina adhanna akdabu alxadiid. waxaan idinka digaya yuri nabi sal ly slam dhanniga, maxaa yeelay waxa ugu beenta badan waa dhanniga. yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min adhann ina bacda adhanni ithm. waati ilaahay qur-aankiisa uu leeyahay duulka iimaanka laga helayo ijtanibuu ka fogaada, in badan ka fogaada, malaha xun ka fogaada. maxaa yeelay dhanniga malaha xun waa ithm, waa dembi. ka fogaada u ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. marka walaalayaal, haddii dhanni xun uu imaadana wuxuu ka soo faracmay waa xaasidnimo. xaasidnimadana shay fiican maaha. nabigana xadiidkii aan nabiga uu warinay abi hurayra uu warinayay oo nabiga ka warinayay ibni maaja uu soo saaray, wuxuu leeyahy nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, iyaakum walxasad, waxaan idinka digaya xaasidnimo. maxaa yeelay xaasidnimada waxay cuntaa, xaasidnimadu waxay cuntaa alxasanaat, acmaashaada oo wanaagsanaa ayay cuntaa. siday dabka uu u cuno, qoryaha uu u cuno, ayay ayadana saas oo kale xaasidnimada xasanaadkaada u cunaysaa. shay fiican ma aha xaasidnimadu. xasidku shay fiican ma aha. haddana xaasidku mar walba wuxuu dhibaa nafsadiisa, lianna qofku uu xasdaayo markii nicmo looga sheego inuu guul gaaray, markii looga sheego wuu ka naxayaa. alxaasid yamuutu qabla almaxsuud. xaasidka wuxuu dhimanayaa intuusan dhimanin kan uu xasdaya. xaasidka ayaa dhinto. shay fiicanna ma aha. waa jiro aad iyo aad u xun. waa jiro aad iyo aad u xun waay xaasidnimo inay qalbiga kaa gasho. waati ilaahay qur-aankiisa oo nooga sheegayaana wa min shari xaasidin idaa xasad. waxyaalaha ilaahay lagaga magan galo waay sharta xaasidka, inuu ilaahay subxaana wa taala lagaga magan galo. sharta xaasidka waxyaalaha ilaahay looga magan galo waay. xadiidkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muxuu ahaa? xadiidkii oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muxuu ahaa? oo abi hurayra uu soo saaray. nabigu wuxuu yidhi walaa taxaasaduu.
ha isxasdina, walaa tanaajasuu, ha isjaajuusinina, walaa tadaabaruu, walaa tabaaqaduu, ha isku caroonina. haddii aan isxasidno waxaa imaanaysa inaan isjaajuusno. haddaan isjaajuusno waxaa imaanayso inaan isku caroono. haddaan isku caroonana waxaa imaanayso inaan kala tagno. xataa heer nabigu wuxuu gaaray walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd, yuusan iibsanin qof walaalkaaga beecaasi uu ku jiro uu rabo inuu ninkan ka iibsado, adi hafaluusin, beeciisa hafaluusin. markaasuu nabiga meesha ugu dambeysay uu dhahay waxay ahayd wakunuu cibaad allahi ikhwaana. shuf, wakunuu cibaad allahi ikhwaana, addoommada ilaahu waxaad ahaataan kuwa walaalo ah ahaada. almuslim akhu lmuslim, qofka muslimka walaalkiisa kale waa muslimka. laa yadlimuhu, ma dulmiyo, ma gardareesto, ma khayaamo, ma xoojiyo, ma dhibo, dhib uma geysto, ma xaqiro. markaasuu nabigu wuxuu yiri sal slam attaqwa haahuna, alla ka cabsiga waa halkaan, alla ka cabsiga waa halkaan. ilaahay meeshaan hanoo daahiriyo walaalayaal, ha idoo nadiifiyo. inaan ka shaqeynaa la rabaa halkaan saa ku daahirin lahayn, saa u ka saari lahayn xaasidnimada, saa ugu saari lahayn xaqdiga iyo xaasidnimada iyo dulmiga, saa ugu saari lahayn. aan dulminayn walaalaheena muslimiinta ah. walaalayaal, run ahaantii bulshada maanta anaga aan ku noolnahay markii aad fiiriso heerka uu gaarsiisan yahay xaasidnimada iyo dulmiga iyo gardarada, wax aad malaysan kartid ma aha. qoflana waxaa arkaysaa wuxuu ku leeyahay war hibilaab iga soo boodayb, waaba iga soo boodayb, jiniyaashaydaaba naceen ku lahaa, jiniyaashaydaaba naceen baa iga soo booday. war jiniyaashan baas oo ummadda kugu diraysa maxay ahayn? wax walba walaalo ama walaaley, wax walba waxaa ka weyn al-ukhuwa al-islaamiya, walaaltinimada islaamka ah. aan ku walaaloonay ilaahay dartiis, aan ku walaaloonay, wax ka weyn lama arkayo. wax walba ayadaa ka weyn. haddii walaalkaaga lagaaga keeno xan, war lagaaga keeno, ku celi, waxaa ku dhahdaa aniga qofkaas khayr un baan ku ogyahay, meeshaas ha ka sii jaan qaadin. awalba waa ogaa inuu saas ay dhahayo, amul waa ogaa inay saas ay dhehayso, waxba ha dhihin, meesha uga har. walaalayaal, ilaahay aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala, acmaasheen aan hagaajino, acmaasheen aan hagaajino, aan iskaga saarno qalbiga xaasidnimada iyo cadaawada iyo coleytanka. shay fiican ma aha, shay fiican ma ahan. adiga laguma dirsan ummadda kale, adiga nafsad ahaantaada ilaahay adigu kula xisaabtamaa. naf walba waxa ayada ay kasbato ayuu ilaahay la xisaabtamaa subxaanahu wa tacaala. shaksi kale laguma dirin. ciddii wax dhacaysa ha dhacdo, cidda wax qiyaamaysa ha qiyaanto, laakiin adiga nafsadaada adigaa ka mas-uul ah. adiga qalbigaaga daahiri, ummadaana ha raaligelinina, ilaahay raaligeli. bini aadan raali ma naqanayaan, maanta o dhan waa iska hadlayaan, wax bay sheegayaan, ha sheegaano. haddaad rabtid inaad noolaato adigoon wax lagaa sheegin bilaa dacaayad, haddaad rabto inaad noolaato ma suurtagelaysid. kaligaaga meel deg, intaad magaaladana ka tagtid kaligaaga meel deg oo ku noolow. laakiin intaad nooshahay dacwo haddaad wadid, aad ummadda kheerka u sheegaysid, ama adiga aad dhoorsan tahay oo nafsadaada adiga iyo ilaahay iyo cibaadaadka iyo acmaashaada iyo dunuubtaada aad ku mashquulsan tahay, wax waa lagaa sheegaa. lianna nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa ummaddan ka fakan waayey. aniga iyo adiga iyo ayada iyo asaga maxaad u malaynaysaa marka? qabla nubuwa, nabiga intaan nabi laga dhigin ka hor waa la jeclaa. maxamedkii runta badnaa, maxamedkii aaminka ahaa ayaa la dhihi jiray.
laakiin markii nebi laga dhigay oo risaalada loo soo dhiibay inuu ummaddaa dacwada gaarsay la amray, sheekadii waa isbedeshay. maxay noqotay? sixroole in la dhaho, beenaale in la dhaho ayay sheekada isku bedeshay. in la tuuriyeeyo, dhiiggiisa qiimaha badnaa in la daadiyo, meeshuu ka dhashtay uu ku dhashtay uu ku barbaaray in laga saaro. waa markuu dacwada u istaagay. anaga maantana lama dilo, magaalana lagama saaro, cay un hadal un weeye, dacayad, wax ma yaqaano ha lagu dhaho, 5 beri maa sheekh lagu naqanaa ha lagu dhaho, khamiiskan wax baa lagu qarinayaa, jalbaabkan wax baa lagu qarinaya ha lagu dhaho. intaas un weeyaan bas, wax kale ma ku dheera. dheg ha u dhigin, horay u soco. adiga ilaahay raaligeli subxaanahu wa tacaala. kii ku xumeeya wanaaji, kii ku gooya xariiri, ha u aabayeelin, lianna xaasidka wax shay fiican maaha. waxaa naga badan walaaltinimada islaamka ayaa naga badan, laakiin inta fahmaysa ayaa yar. ilaahay dartiisoo laisku jeclaado oo lagu walaaloobo, ilaahay dartiisoo laiskugu imaado, ilaahay dartiisoo loo kala tago, waxaa lagu harsadaa harka maalinta qiyaamo. qiyaamo markay dhibaatada jirto, qoraxda lasoo dhabeeyo, dhibaatada ay jirto, kuwa ilaahay dartiisa isku jeclaaday oo ku walaaloobay waxay ay hoos harsanayaan carshiga ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa maalinta ay hooyada kaa ordayso waay, waa maalinta xaaskaaga kaa ordayso waay, waa maalinta walaalaha kaa ordayaan waay, waa maalinta saaxiibkaaga kaa ordaayo waay. adigana dadkaad ilaahay dartiisa ku walaalowdeen waxaad harsanaysaan harka ilaahay subxaanahu wa tacaala. aabay kuwa ani darteeda isku soo jeclaaday, kuwa ani darteeda isku fariistay aaway. maanta ayaan u xaraynayaa maalin aan har jirin. har kale ma jiro ilaa ilaahay hooskiisa mooyaane maalintaas. aaway walaaltinimada muslimiinta. maxaan isku xasdaynaa? maxaan isku dilaynaa? maxaan isku caynaynaa? maxay tahay cadaawadan aan qalbiga iskugu hayno? maxay tahay? ma kala maarmano, mar walbana isku baahan nahay. lianna axaadiistii nabiga ayaa tilmaamaysa mu'minka kalbunyaan, sida dhista oo kale waa yuri nabi sal slam, yashiddu bacduhum bacda, midka kale ayuu adkeynayaa. markii guryaha la dhisaayo, bulkeetiga kale ayaa lagu qabanayaa, way is adkeynayaan, way is qabanayaan. mu'miniintana waa sidoo kale, midka kale ayuu wuxuu u yahay dhis, way is adkeynayaan. laakiin maantay maaha. maantay muslimka kale ayuu wuxuu ku yahay lid. mu'minkana, qofka mu'minka ah, nabiga suu xadiidkiisa uu tilmaamay, mid wax dura ma ahan, aan ma aha mid wax dura maantoo dhan dad haysta ma aha. wax ma dura mu'minka, wax ma caayo, wax ma dhaliileeyo, wax ma sheego. carabkiisuu ilaarsadaa, aakhiradiisuu u baqaa. laakiin maantoo dhan qof shaka ka dhigtay inuu wax duro, aada ka dhigtay walaalkiisa muslimka ah, walaashiisa muslimada ah, durid, yasid, xaqirid, oo maantoo dhan wax ka sheegay. so dhibaatadeeda ma laha. waa dhibaato aad iyo aad u xun waay. waa dhaqan aan ficneen, waa dhaqan aad iyo aad u xun waay. ilaahay aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala. maantay waxaad arkaysaa labadii waalid, laba ina adeer, labadii waalid, labadii walaalo, aabbihii oo walaalaha ahaa ayaa isku dhacaya. ilaa heer waxay isoo gudbaysaa caruurta ay wada dhaleen. waxaad maqlaysaa aniga reerkaas islama hadalno, waa walaalkii, waa walaashiis, islama hadalno. maxaa yeelay aabbahii iyo aabbihiisaa isku dhacay, ayeeyadiisaa isku dhacay,
eedaday iyo eedadiisa isku dhacay, abtigay iyo abtigiisa yani ayaa isku dhacay. yani waa dad famil ah, qaraabo ah. soo ma ogin qaraabadoo la gooyay inaan naar ku gelayn, jahannamo dadka ku hoobanaya markii siraadka la dulmarayo, dadka jahannamo ay ceshanayso waxaa ka mid ah kuwa qaraabada goynaya ka mid ah, qaraabada aan xariirinaynin. walaalkaaga kula dhashtay iska daa, walaalkaaga kale muslimka ah ayaan kuu banaaneyn 3 maalin wax ka badan inaad kala aamusnaadaan ma banaano. laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa 3 layaal. 3 maalin wax ka badan inuu walaalkiisa ka haajir ma banaano. marka walaalayaalo ilaahay aan ka cabsano. acuudu billahi min ashaytaani الrajiim. yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هدو إذن إماضو كوبا إلهي رميي وهدو فاسق إذن إماضو عديستا فتبينوا هورتا عديستا وركا هوبية وركا لإذن كيني هوبية إنت هذا نقف كان كلا وركا لغاقا كيني آذان كو صلاح تجن آذان كو حد قدبين عرضيس إيو شرفتيس إيو قيميس آذان كو حد قدبين هورتا عديستا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الجاهل نما أنت تقف كان كو قشيدو أو وحو بينين تنك ككرتد عايسيد أو نباتيسيد هدون فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وحا أذيك أسميسي إن الدب أغش لايسو الله هذا الكاسار بهاي حتى إيه عداتي والله أنا اسكوبيا إيه فعنيت أنت ليه لاد هرتا مركو هربا اسكوبي waxay Soomaali dhahdaa nin dhiig da'ayo oo qaylinayo haduu ku soo galo oo soo qaylinaya haduu ku soo galo ha aaminina horta sug wax ka dambeeyo sug waxa laga yaabaaba ninkan la soo daqray inuu qof soo dilay laga yaabaa horta wax ka dambeeyo sugba hubi. intaas waxay kala wadaa oo la jeedaa horta hadalka iska hubi marka hore. wax kasto lagu keeno ha qaadanin, wax kasto lagu keeno run ha malayn, iska hubi. dad bay xaasidnimada lafaha ka gashay, shay fiicanna ma aha, horumarna ku geyn maayo. dib ugu laabta maskaxdiina. xaasid horumar gaaray keena ma jiro, xaasid horumar gaaray ma bajiriba. xaasidka haddana waa cadow Allah, xaasidka waa cadow ilaahay subxaanahu wa tacaala. muxuu ku yahay? maxaa yeelay nicmooyinkan ilaaha bixiya. ninkan nicmada uu haysto, gabadhan nicmada ay haysato ilaaha bixiyo, ilaaha siiyey. maxaa adiga la dagaalamaysaa marka? ilaahu maxaad qofkan ugu nicmaysay ayaad ku haysataa ilaahay subxaanahu wa tacaala. khaaliq hada alkown ayaa waxaa ku haysataa ilaahu addoonkan maxaad ugu nimcaysay. khaaliqu hada alkown aad ku haysataa, ilaahna u nimceeyey. waxaa lagaa rabay haddaad rabto inuu qalbigaaga ka zuulo xaasidnimada, markaad qof walaalkaaga nicmo ku aragto waxaad dhahdaa maa sha allah, laa xawla walaa quwata illa billah, maa sha allah. ilaaha kuu barakeeyo, ilaaha kuu ziyaadiyo, u duceey. laakiin inaad xasidnimo meel lasoo fariisatid iyo dacaayadad iyo waxba ka jirin aan dhexdeena iska faafino shay fiican maaha. anigoo nafsadeeda ka bilaabayo waxaa idinla dardaarmaya walaalayaalo, ninka maantee nool beritoole ma noolaanayo. maanta waa adduunyo, beri waa aakhiro. meel lanoo soo joogo cid maanta ay sheegi karta ma lahan. goorta aan dhiman doono cid og ma jirto. caafimaadkan inaan sii qabi doono cid balan dhihi karto waan sii qabi doonaa ma jirto. maalin un dunidan waan ka tagi doonaa, hadday dhawaato iyo hadday dheeraataba. maalin waxaan dhihi doonaa meydka hala cafiyo. maalintaasi qof walbow waxaa maalintaasi aad ku badbaadayso waxay tahay qalbigaaga oo nadiif ah,
xasid iyo dulmi iyo shirki nadiif ku ah. qofka badbaadaya maalinta qiyaamo ilaa man ata allaha biqalbin saliim, qof la yimaaday qalbi saafi ah, shirkiga iyo xumaantii iyo wax walba saafi ka ah ayaa badbaadaya maalinta qiyaamo. marka walaalahayga aan aadka u jeclahay ilaahay dartiis, wanaagga aan isfarno, wanaagga aan ka shaqayno, horumarka ummaddan aan ka shaqayno, badbaadada jiilka soo koraya aan ka shaqayno, ubadka aan dhalnayn aan ku tarbiyayno diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala. xaqdiga iyo xasidka iyo dulmiga yaanan u horseedin, bulshadaanan yaanan dhibaatayn. kan wax sixirhayo xaasidnimaa ku qasabtay, kan wax dilaayo xaasidnimaa ku qasabtay, kan wax jaajuusaya xaasidnimaa ku qasabtay. laakiin qof xaasid aan ahayn, qalbigiis iimaan ku jiro, walaalkiisa kale muslimka uma ogolaanayo in la dhibaateeyo. lianna nabigaa wuxuu tilmaamay mu'minka iyo mu'minka kale kaljasadi alwaaxid, sida hal jir oo kale. ida ishtakaa minhu cudwun, jirkan hadduu xibin ka xanuunto, tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma, jirka oo dhan wuxuu isku soo wacanayaa soo jeed iyo xanuun. hadday caawa fartan kaa xanuunto, indhihii ma hurdayaan, afkiina ma aamusayo, jirka kalena wuu dhaqdhaqaaqayaa. indhihii waa soo jeedayaan, ma hurdayaan, afkiina wuu taahayaa, ayuu leeyahay. jirka kalena mar gacantaanu saan u qabanayaa, lugihiina way soo soconayaan, way wareegayaan. adigoo dhanba ayaan xanuun iyo soo jeed ayuu ku qasbayaan. marka walaalahayga aan ilaahay dartiis aan u jeclahay, wallaahi oo billaahi oo tallahi ilaahay dartiisaan idin jeclahay. walaalayaalow, ilaahay aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala, ilaahay aan ka cabsano subxaanahu wa tacaala. nafsadaan midna loo soo joogo ma naqaano, goortaan dhiman doona ma naqaano. wanaagga aan ku dadaalno, wanaagga aan ku dadaalno. kelimadeeda halkaasaan ka soo koobayaa, meeshaasaan ku soo gaabsanayaa. wixii aan gafay waa fa min nafsi washaytaan, ilaahay rasuulkiisa beri ayay ka yihiin. wixii aan casiibayna ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay. haadaa wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.